salaada janaazada marxuum baashi xoosh jibriil waxaa ka soo qayb galay ehelkiisa asxaabtiisa iyo jaaliyadda magaalada istanbul ee dalkani turkiga حق المسلم على المسلم وهي قفك إلهي وافكي ما أنت تصدبوا هلي وكغير غيب قلو جناسة والالكين وفرصد إنه لما يشو وحن شوئنا وشفاء عقاد إلهي ما وحن هو يدينينا إلهي سبحانه وتعالى إلهي نوضل مدافع أستغل الجنب جيسا الله دافع goobta janaazada sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyadoo jawigu ahaa mid roobaad waxaana aaska iyo janaazada ku soo beegmay raxmadii Alle Allah rızası için namaza Resulullah Efendimiz için salavata meyyit için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine الله أكبر إخواني حدينا إنه يدك الصوماليين ونكفي عنها مركا إنه مالها إنسان أنا ويرنا عن شغله تطفي عن أو ولا أو كل يدير كلام إلهي يروح نكبر إنه مد الصوماليين هتعرف إنه هاي أحمد بعد عيسى ووقت يدا إلهي أضمنك وحكاك بلو إلهي يروح نكبر إنه مد الصوماليين ميرا شغله إلهي قلوب تدين منه Kilyos mezarlığı. marxuum baashi oo ahaa shakhsi wax weyn u qabtay dadka Soomaaliyeed ee dalka Canada ayaa maanta la geeyay gurigiisa runta ahaa oo qof walba ay sugayso قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إذا وأنتم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما عند الله وإنما أنا نذير صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم هذا الذي يرزقكم إن أمسك بل لنتم markii iilka la dhigay marxuumka ayaa waxaa dadka la hadlay marxuumka ehelkiisa Qaasim Aadanna waa mid ka mid ah ehelka marxuumka intaas noogu filan walaalkeen meesha aan maanta dhignay waa meel kulligeena sugaysa qof walba halkaas u dambeynaysa marka koowaad intii taqaanay waxaan leenahay intaan aqoon baan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa yus'al hadda la weydiinaya ilaahay su'aasha inuu u fududeeyo qabrigiisa ilaahay inuu waasiciyo min rawdati min riyaadil janna ilaahay inuu uga dhigo ilaahay saasaan uga baryaynaa waana u ducaynaynaa adinkuna waa u ducayseen waanad ku mahadsan tihiin juhdiga aad ku bixiseen qaybqabka iyo waajibkaas xaqa oo ah xaq almuslim ala almuslim qofku walaalkiisa janaasadiisa inuu raaco waa xaq islaamku isku leeyahay marka xaqaas waajibka oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nasaaray inuu gudanayna waa gudanay mahad waxa iskale ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo inoo fududeeyay Allah ma hadda iskale waxaan kale u mahad celinaynaa dadka walaalaha ah oo runtii duruufta adag u soo maray inay walaalo ka qayb qaataan iyagana waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka Allah u saaro asagana ilaahay ha u naxariiso walaalaha ciddii xuquuq xoolo u haysay xoolahaasi dhaxal bay noqonayaan waxaa lagu soo wareejinayaa Muusa jooga Sooyaan baa jooga reer xoosh waa dad la yaqaan oo ehela ciddii dayn ku lahayd ilaa aadanka waa dhex mari karaan
ayadana way keeni way soo doonanayaan waa la siinayaa ilaahay idinkiisa kalimadaydu marka waxaan leeyahay walaalkeen ilaahay ha u naxariisto hana la cafiyo oo ciddii ay wax dhex mareen social media qaasatan dadka u fara dhuudhuuban inay dhigaan social mediaha ciddii xuquuq ku leh macnaha inay halkaa ka soo doontaan lana cafiyo waqtiyada roobku daahayo waa waqtiyada ilaahay wax aqbalo oo addoomanku baryadooda la ajiibo weeye waxaan filaynaa ilaahayna ka rajaynaynaa ducada aanu ducaynay maanta ilaahay inuu aqbalo ilaahayga subxaanahu wa tacaala ha uu naxariisto annagana bacdigiisa wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre ayaa dhankiisa hadal kooban goobta ka sheegay ilaahay nin raxiim oo aad u naxariis badan ilaahay u naxariisto waxaan codsanaynaa inta ummad sida walaalkeen Khalifa uu sheegay in intay wax dhex mareen ay cafiyaan maanta asaa naga hooseeyo annaga awoodnayna cafino haddii waxuun si uun loo dhibsado u shafeeca qaada ilaahay u baryo dembigiisa inuu cafiyo idinkana cafiyo nin aad u wanaagsan u ahaa aad iyo aad u wanaagsan kol dhaweed waxaa laga dhawaajiyey magaalada Toronto inay u darsan doonto oo cabsi laga qabo wixii kaalintiisa buuxi lahaa laakiin ma aha Toronto keliya iyo Canada ummad Soomaaliyeed meel kastoo joogaan taladiisa iyo tagaadiisa intaba way gaaraysaa ilaahay ha cafiyo ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay jannada ha ugu bishaareeyo سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أهلك الله ويا رحمنا فمن قل هو الرحمن آمنا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير مرحوم باشي حوش جبريل ayaa 6 bishan December koox burcad ah oo arxan laawayaala waxay ku dileen magaalada Istanbul iyadoo gacan ku dhigliyaashaasi ay ku jiraan gacanta booliska Turkiga آمنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور